حدونا إن حكم وربحنتي سند الله كسب بندقنا وربحنتها صون سند كيو مر واحد عدالة أنا حقيقة عدالة حزب قوتني أنا كسب بندقنا وربحنتي هذا وما قعدرني حد جدد بيدا كلن كحرية أساس كا يقلدلوين كنظام كعدالة السومالي الآن مركا واللحت واحد ككومنت اللح واحد واحدة كرسور كأيان كوب كا بوليس كأيا كحيجا استرلجية تشيلشة كحيجا صحفيين تي سياسيين دي دتك برا بشدة كقراح لكحيجا تلا سوتشيدين بكحيجا مركا وحن دنيا خب الأور بحنتا كرسور كنبتو جوا إذا كتاج واحد دعوة أو ضاها دعوتها درجة كوبات أو طاها يو دعوتها مدينة يكون عقابته أو طاها درجة كوبات meelaha maxkamadaha dacwadaha lagu galo oo ciriiriya intaas oo garsoora qol yar fayl u galaya marka taasina waa carqalad kale waxa iyaduna ceeb in go'aanka maxkamaddu soo saarto maxkamaddu hay'adda garsoorka waa hay'adda ugu weyn garsoorka maxkamadaha go'aanka soo saaraan inaan booliiska xiraalintu u hoggaansamin oo dad maxkamaddu sii deysay xabsiga la iskaga sii hayo oo imika ku jiraan oo dad badan oo muwaadiniina taasi ayaan u haynaa garsoorku inay arintaas ku ceebaynayna aanu aragnaa dhaliil weyn baan u aragnaa arinta waxa iyaduna warbixinteeda kamida xadgudubyada ka dhanka dadka lagu xidhxidho saldhigyada dad muwaadiniin lagu xidhxidha iyo dad aan muwaadiniin ahaynba dhammaan waxay waayaan xuquuqaadka asaasiga ah ee dastuurka iyo xeerarka caalamiga ah damaanad qaadeen kuwaasoo kow ah in qofka la xidhayo saldhigga lagu hayo muddo kooban inaan lagu haynin muddo dheer lagu haynayo taasina ay ceeb ku tahay oo dastuurka ay ceeb ku tahay xeerarka dalka ceeb ku tahay taasina ay ka hor imaanayso qawaaniinta iyo dastuurka Soomaaliland dadka lagu xidho saldhigyada intooda ugu badani muddo kooban laguma hayo wiigag iyo bilaa lagu haya taasoo dawladdu iyo xukuumaddu ugu talagelin raashinka iyo cuntona ma helaan dadka saldhigyada ku jira muddada ku jirayaan oo muddo dheer taasina walaac weyn baa naga haysta arinta aad iyo aad baa uga xunnahay waxa iyaduna qayb warbixinteeda ka booliska la siyaasadeeyay booliska siyaasiyiin aad moodin inay waax siyaasadeed oo waaxdi fulinta ku milmeen booliska Soomaaliland waa hay'ad sharciga fulisa marka waxaad moodaa in booliskiina laga siyaasadeeyay oo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye naga siyaasadeeyeen waxa siyaasaddan aanu haynaa cadeymaan u haynaa dad siyaasiyiin oo la xidhxidhay oo waaran la'aan lagu xidhay iyo konfil dambiyeed gacanta kula jiray waxa kamid ah in xarumo xisbiya la weeraray oo xisbiga waddanka imka xaruntiisa guud ka hadlayna ay booliska soo weerareen waxa iyaduna dhacdadan sanadkii 2020 ceeb weyn ahayd oo Soomaaliland oo dhan iyo dunida dhan iyo dadka dimuqraadiyadda Soomaaliland ka taageera ay la yaabeen in gudoomiye xisbiga Soomaaliland ugu weyn mucaaradka wadan Xirsi Cali Xaaji Xasan in CID loo qeydho taasina ay ku tusayso in boolisku siyaasadeysan yihiin oo siyaasad loo isticmaalayo oo ay caburin tahay sababta lagu yeeray gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan ay tahay maxaad xukuumadda u dhalishay maxaad dawladda u dhalishay taasna waxaan uga haysaa walaac weyn baan uga haysaa in boolisku ku milmeen siyaasadda waxaan boolisku u baaqaynaa in siyaasadda ka baxaan ay noqdaan hay'ad sharciga fulisa oo sharci ku aasaasan oo muwaadiniinta aan siyaasad iyo siyaasad la'aan u kala eegin warbixinteeda waxa iyaduna qayb ka ah in saldhigyadu ay yihiin meel aan dadka lagu hayn karin saldhigyada Soomaaliland dhammaan 6 gobol oo dhan xaaladooda saldhigyada waa xaalad aan caafimaad ahaan fiicnayn sanitationkooduna aan fiicnayn biyo ku filan aan inta badan jirin caafimaad ahaan aan u fiicnayn marka waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda in saldhigyada wax laga qabto oo dadka lagu haynayo ay noqdaan dadka muwaadiniinta dad caafimaadkooda u ilaaliyo xaaladan xanuuno badan ee COVID-19 uu jiro walaac weyn baa naga haya dadka ku xidhan saldhigyada warbixinteeda qayb waxa ka jeelasha Soomaaliland 6 gobol oo Soomaaliland jeelasha ugu waaweyn ku yaala waxa weeye kuna warbixinta way ku jiraan waliba walaaca ugu weyn naga haya saldhiga jeelka weyn ee Berbera oo guuna oo muddo fog la dhisay oo waqtigii isticmaalkii la dhisay oo lagu talagalay dad yar oo kooban ayaa dad badan oo xaddigii lagu talagalay jirin iyo isagoo guun oo weynaaday oo aan dib habeen lagu sameeyay taana walaac baa naga haya jeelka weyn la socod baa isna walaac weyn naga haya jeelka Caynaba iyo Gabiile baa iyaduna jeelalka ku yaalayihiin qaar aan wanaagsaneyn oo lagu hayn karin dadka haday noqoto dhismayaal haday noqoto nadaafadaba marka walaac weyn baa naga haya halka jeelashana
waxa iyadana ceeb weyn ah inaan jeelkii haweenka ama dumarka ee magaalada Hargeysa ku nool yihiin 2 milyan ku dhawaad dad ku nool ayna jeelkii dumarka lahayn iyo jeelkii caruurta oo caruurta lagu la xiro dadka waaweyn taasina ay tahay khatar weyn oo dhan caruurta yar yar aan ay ku soo wajahayso marka arinta caadi aad baa uga xunnahay dumarkana ayna jeelka weyn Hargeysa ayna ku lahayn jeel ayadana walaac weyn waxa iyadana walaac weyn oo warbixintu ka hadlaysaa siyaasiyiin la xirxiray 10 siyaasi oo la xirxiray si guud dadka la xirxiray sanadkiina dhaafay waxa weeye 114 qof dhammaan dadka la xirxiray sifo baalmarsan sharciga iyo dastuurka qawaaniinta ayaa loo maray dhammaantood dadka la xirxiray 3 qof oo kaliya ayaa maxkamad xukun ku riday oo ku jiro gudoomiye ku-xigeenka gobolka Muruudojeex Weli Cabdi Jaamac aad baan uga xunnahay dadka siyaasiyiinta la xiray waxa la xiray kuna saxafiyiin 22 saxafi gaadhay oo jirdil loo geystay oo warbixinteedu sheegayso oo saxafiyiinta lagu xiray guryo waxa ceeb weyn ah in dad sirdoon sheeganaya oo hay'ad sirdoon sheeganaya oo mandate u haysan inay dadka xirxiraan oo mandate u haysan inay guryo sameystaan oo mandate u haysan inay saldhigyo sameystaan oo inay dadkii muwaadiniinta ahaa ee saxafiyiinta ahaa oo suuq iska jooga ay suuqa ku xirxirayaan ay qaraacayaan oo tahdiid iyo hanjibaad u sameynayaan oo qolal iyo guryo aan xeer ku sheegin iyo xeerarka dalku iyo dastuurku midna aanay sheegin inay dad ku xireen taasna warbixintu ka hadlaysaa warbixintu waxay iyaduna ka hadlaysaa dadka baraha bulshada ku qora oo la taageerayo target weyn u noqday xukuumadda oo ka hor imaanaya dastuurka iyo qawaaniinta dastuurka Soomaaliland wuxuu damaanad qaaday dadku in xorriyadooda dhiibtaan si madax banaan u dhiibtaan ama suugaan ku dhiibtaan ama qoraal ku dhiibtaan ama hadal ku dhiibtaan marka wixii oo dhan waxaad moodaa in dawladdu madaxa iskaga duubtay waxa iyadana warbixinteeda ka mid ah walaal in culays weyn la saarayo dadka muwaadiniinta ah ee siyaasiyiintu ku yihiin on hore u soo sheegnay marka warbixinteedu waxaan ugu talagalay inay saxdo oo dadka ay qusayso ay saxaan oo booliska la siyaasadeyn oo garsoorku oo ummadda u cadaalad sameeyaan warbixintan sanadkii umar baan soo saarnaa waxaan ugu talagalay inaan la wadaagno dananayaasha Soomaaliland warbixintan waxaan doonaynaa anagu xisbi ahaan oo naga go'an dawladda wadani waxa ka go'an dawladdu adeegto dastuurka ku dhaqanta xeerarka caalamiga iyo kuwa dalka marka anigu waxaan doonaynaa dawladnimada la wanaajiyo dadka xirxiran imka jeelasha ku jirana dad badan oo muddadii xadhig dhamaystay waxa ceeb Soomaaliland ku ah dad xukunkii dhamaystay oo dad badan tiradoodu aad u badan tahay in jeelasha dalka ku jira taasina waa ceeb weeyaan waxay dul saarantahay xukuumadda qofka xukunku markuu dhamaysto waa inuu dibadda u baxaa ama lagu yeesho xuquuq madaniya ama lagu yeesho cidii xuquuq madani ku yeelo dacwad isagoo dibadda joogay waxa ceeb aad weyn ah in iminka uu xiran yahay Samafale Cabdimaali Sheekh Muuse Ordoon oo muddo dhaweyd maxkamaddu sii deysay oo iminka muddo 22 cisho ah iskaga jira jeelka iyadoo maxkamaduna dambiilaawo aqoonsatay taas waxay ku tusaysaa inaan maxkamadihii baawarkoodii ay isticmaaleen oo booliska xiraantu baawar badin marka waxaan madaxweynaha soo jeedinaynaa xukuumadda soo jeedinaynaa inay arrimahaas oo hoos loo eego gunaanadka waxaan doonaynaa inaan baarlamaanka Soomaaliland waaxda cadaaladda iyo garsoorka inaan fariin u dirno halkan inaan u soo jeedino soo jeedinteedu noqoto inay kormeeraan oo kortugteeyaan saldhigyada jeelasha ku xiran yihiin dadka muwaadiniinta ah taas waa mas'uuliyad saaran xildhibaanada sharafta badan ee golaha baarlamaanka gaar ahaan waaxda cadaaladda iyo garsoorka u qaabilsan inay dabagal ku sameeyaan dadka muddo dhaafka ku jira jeelasha laga sii daayo jeelasha dadka saldhigyada cunto la'aan ku haysato in cuntada loo sameeyo waa xuquuq ay leeyihiin dadka waxaan ka hadlaynaa marka warbixinta iyadoo detailisa waxa laga helayaa dhammaan waxaan ku soo galeynaa baraha bulshada iyo mareegaha xisbiga leeyahay maasantii